kulankan ayaa mid looga hadlayay ay ka talinta gobolka Shabeellada Hoose iyo sidii looga xoreyn lahaa goobaha ay ku sugan yihiin kooxda nabadiidka ee cadeysay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed. Gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr iyo 10 qodob oo ku aadan habka looga qayb qaadan karo nabadda iyo horumarinta deegaanada gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana warmurtiyeedka saxaafaddu u akhriyay Suldaan Warsame Suldaan Cali Ibrow oo ka mid ah salaadiinta ka qayb galay kulanka. waxaan isku raaceen dadka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose in ciidamada gobolka in la dhiso si degdegna loo dardargeliyo degmo kasto si loo xoreeyo gobolka Shabeellaha Hoose. degmooyinka qaarkood xorweeye ciidamada joogo in la taageero degmooyin kale si degdeg ah ciidamadooda lagu dhiso si loo xoreeyo deegaanka nabadna loogu dhigo dadkana ay u safraan anagoo ka cimri qaadanayno safarkii dheeraa uu madaxweynaha ku soo maray gobolada dalka intiisa kale sida loo nabadeeyay daraadeeda ayaan anagana waxaan aad iyo aad isugu mashquulinaynaa insha Allah si loo nabadeyn lahaa. qodobka saddexaad waxa bayaankan isku afgarno ka soo baxay anagoo tixraacayno shuruucda dalka iyo go'aamadii ka soo baxay dawladii Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda hadda jirto madaxweyne Farmaajo hogaaminayo wax dhul ah oo la bixin karo haba yaraatee ma jirto marka si laga soo bilaabo ilaa 1991 up to now 91 ilaa hadda wax dhul ah la bixin karo ma jiro wax boob iyo xoog lagu haysan karana ma jiraan taasna anagoo tixraacayna shuruucda dalka u degsan soona dhaweynayno go'aankii madaxweynihii hore dawladii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda hadda jirta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. qodobka afraad in la sameeyo dib u heshiisiin guud ee gobolka maadaama colaado ay haraadiyeen isla markaasna dawladda federaalka international community aan ka codsanayno in la taageero dib u heshiisiinta hadda jirto lana dardargeliyo si dib u heshiisiino caalami ah loogu sii sameyn lahaa tan hadda jirtana la soo dhaweeyo lana taageero ayaan ka codsan lahayn. deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka deegaanka ay muddooyinka dambe ku holanayeen sidii halkaas looga sifeenayo kooxda nabadiidka ay cadeysay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.